كوين قاون waxay umada ka sheegaysa runtood waa sababtoo ah ani waxaan jeclaa inaan walaalnimo wax ugu sheego iyo islaamnimo way soo karbaash aan caadi ahayn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا Soomaaliyeed qiimaha iyo qaayaha mudan aad iyo aad baa idin salaamaya soo dhawaada ayaan idin laahay meel walba dunida ka joogtaan channelka naga daawanaysaana waa Somali Voice TV waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan anigana sidoo kale maanta waxaan idin wadaa barnaamij cusub laakiin intaanan u guda gelin haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelka naga soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe-ka noo saarto haddii aad nala sii joogteen aad iyo aad baa u mahadsan tahay like iyo share iyo comment intaasina waa dhiirigelintaanada muuqaalka maanta aan idiin wada wuxuu yahay maalmahan baraha TikTok waxaa haystay iyo sidoo kale Facebook aan dhaho waxaa haystay muuqaal maama la sheegay inay tahay habaryarta Kuwiin Qaawan ayaa ah gabadh baraha TikTok caan ka ah laakiin aan soo gudbinin muuqaalo wanaagsan oo dhaqanka islaamka aanan ku fiicnayn Kuwiin Qaawan ayaa iska soo duubta muuqaalo ay aad iyo aad u qaawan tahay oo aysan asturnayn wax xijaab ah aysan wadanin timaheeda wax walba jirkeeda kamid ah uu banaan yahay intaasi waa waxa ku saabsan Kuwiin Qaawan maamadan ayaa sheegtay yacni inay maartay la xiriirayso oo ay maartay rabto inay Kuwiin Qaawan ay la hadasho inkastoo maamada aysan iyadu dhihin habaryar baan u ahay ama maartay yacni ana dhalay inkastoo aysan dhihin laakiin waxay sheegtay inay hooyo u tahay Kuwiin Qaawan macna yacni eraygeeda yacni laga dareemayo hooyo aan u ahay wax saas dhahaysay laakiin dadka qaar ayaa waxay leeyihiin yacni waa habaryarteed marka maamadan waxay sheegtay in ay maaragtay Kuwiin Qaawan ay la xiriirayso rabtana inay la hadasho waxayna sheegtay inay kala hadlayso dhanka wanaaga macnaha ay wax u sheegi rabto laakiin maamadan ayaa maaragtay ku fogaatay muuqaalka waxayna sheegtay inay Kuwiin Qaawan run badan tahay oo runtana ay ku jeceshahay waxay kale sheegtay Kuwiin Qaawan inaysan wax xumaan sameeynin laakiin jirkeeda kaliya maartay lagu haysto waxayna tiri jirka adaa iska leh yacni waxa doonto waa sameyn kartaa amal laakiin maamada hadalkeeda xogaa yacni inay maartay ilaahay u soo hanuuniyo iyo u rajeynaysaa marka si fiican ugu meynsan cadeynin laakiin way u kormaraysaa marka maamadan ayaa waxaa kale sheegtay inay Kuwiin Qaawan ay taqaano diinta ay dadka ka badiso maamada ayaa sheegtay inay Kuwiin Qaawan diin iyo cilmi leedahay ayna dadka ka badiso marka waxba yaanan maartay muuqaalkan aan idinku dheeraynin laakiin waxaan rabaa muuqaalkii maamada ugu horeeyay inaad daawataan laakiin waxaa jira muuqaal kale oo asagana aan idin hayo oo aad iyo aad maartay asna u xiiso badan sababtoo maamada hadda muuqaalkan hore aan rabaa inaad idin tuso Kuwiin Qaawan bay difaac ugu jirtay oo maartay ku amaaneysay laakiin maxaa dhici doona intaan kaaga hor dhicin bal muuqaalkan ila daawo kan waxaan ka salaamayaa asxaabtayda qaaliga ah meel kasto ay joogaan dunida iyo dacaladeeda salaan kadib halkan waxaan kala hadlayaa kiinay halkan kala hadlayaa waxaan kula hadlayaa salaantaasoo ka qaalisan dunida iyo mugeeda salaan ka bacdi walaalo maama waa ku salaamay videogeena ina arki doontaa u malaynayaa ilaahay ha ku tuso alaha ina qaabishay waan arkay waad ku mahadsan tahay dad badan adiga dartaada igu aflagaaday oo waxyaalo badan ii soo qoray ayagay u taallaa taas aniga views kuuguma raadinay lacagna kaagama raadinay ilaahay dartiisaan kuu jeclaa ilaahay dartiisaana kuu soo wacay inaad iga aqbashaana ilaahay ka rajaynayaa waxaa tahay gabadhaydoo kale aan dhalayaad la mid tahay waxaan jeclahay jidka siraatal mustaqiimka ilaahay nagu wada rido taasaan horta ilaahay ka rajaynayaa kadibna waad ku mahadsan tahay waxaadna tahay qof qaali oo run badan aada u run badan waxyaalaha aan kugu jeclaadayba
runtaa ka mid ah qofka bini aadanka ah wuxuu ahayn lama saara wuxuu ahaynna ma noqonaaya aniga adoo wax xun suubinaysid kuuma arka waa soo waxa bini aadanka ay ku haastaan waa jirkaada adaa iskale aniga waxaan kugu leeyahay waana hooyadaaya ahay inaad iqaabili doontaan jeclahay xoolo iyo fiyusma ku raadinay dad ay dhahay dad badan waxyaalo badan iska soo qoray taasna ayaga fikradooda waa ayaga u taala ani qof bini aadan inaan caay ama qof bini aadan aan wax hadal xun dhoo uguma talagelin mana laga yaabo inaan qof bini aadan inuu wax iga sheegto ma jecli dadka walaalahay oo wax xun ii soo qoraayana ilaahay waxaan ka rajaynaa afkooda inuu waxsan ilaahay u saaro sababtoo ah aniga keenay cid iga xigta ma lahan waa gabar muslimad ah anigu gaal ma dhihi karo afkaygana ma soo qabanayo sababtoo ah waxaan u dhihi karnaa ani ma abuurin ilaahay baa abuurtay dambigeedana ilaahay baa ku leh waxay samayso way ka toobad keeni kartaa adoon ilaahay waa diin ma taqaanaa dhahdeen maama xijaabkaas kaga dheelin xijaabka waa aayad quraan ah diinta way idinka badisaa wayna taqaanaa inay ku camal falatana ilaahay baa uga rajaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaa kiinay inay idinka quraan badan tahay idinkana cilmi badan tahay waxaasna hadda macnaha ilaahay tusaaladiisana waxaan jeclahay inuu ilaahay hanuunka ilaahay inuu ilaahay siiyo intaas ani ka codsana ani kiinay maxay ahayd uguma tagin xoolo kama raadinhay maxay ahayd fiyus kama raadinhay waxaan filayaa inaad muuqaalkii hore ee maamada aad la daawateen aadna dhugateen yacni maamada ujeedkeedii laakiin maxaa dhacay kadib muuqaalkaa maxaa ka dambeeyey gadaashii maxaa dhacay gadaashii waxaa dhacay inay maaragtay kuwiin qaawan ay maamadii u soo jawaabtay laakiin maamadii waxay sugaysay in wanaag iyo soo dhaweyn ay kala kulanto laakiin maxay kala kulantay aflagaado heerkii ugu dambeeyay kala kulantay run ahaantii waxaan dhihi karnaa kuwiin qaawan weji ma lahan sababtoo ah qof horta yacni jirkiisii asturi waayey yacni uma malaynayno qof kale uu xushmad iyo ixtiraam u siinayo sababtoo ah qofka waa haddii buu naftiisii uu keeni waayey naf kale dee macnaha yacni waxba uma taraayo marka weji ma lahan kuwiin qaawan maamadii maxaa ku dhacay maamadii waxaa ku dhacay in ay kuwiin qaawan soo aflagaadisay oo xitaa gaadhay heer ay dhahdo maamadan wicil bay hore u dhashay tuule heblay maaragtay wicil ku dhashay marka kuwiin qaawan baa maamadii si aan inaba caadihiin yaa u karbaashtay maamada ayaa sheegtay oo afkeeda ka sheegtay in karbaash inaba aan caadihiin baa lii geystay dhahday maamadu marka dee meel khaldan bay albaab khaldan bay qaraacday maamadu markii hore marka maamadii arrintaasaa qabsatay bal haddanana ila dhegeysta maamada muuqaalkeedii dambe haddana ay maaragtay kuwiin qaawan markay soo jawaabtay kadib maamadii maxay tiri yaa maamadii maxay tiri dee dadkii way saxnaayeen bay tiri markii hore sax bay ahaayeen shalayna waxay lahayd ayadaa diinta idinka taqaana maantana waxay tiri kuwiin qaawan dadkii waxay ku haysteen waaba runba yacni xaqiiqda iyo nolosha iyo waxa ay tahay kuwiin qaawan bay soo ogaatay marka bal ila daawa asagana muuqaalkan bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka salaamayaa asxaabtayda qaaliga ah dunida iyo dacaladooda meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta 114 salaanta islaamka 114 ku salaama salaan kadib kuwiin qaawan waxay ummadda ka sheegaysaa runtood waa sababtoo ah ani waxaan jeclaa inaan walaalnimo wax ugu sheego iyo islaamnimo way soo karbaash aan caadi ahayn waxay leeyahay sheegaysaa in tuulooyin lagu dhadhalay oo adduun la soo qabto ani iyada walaalo aan nahay ani iyada walaalo ma nihin islaamkaas wadaagnaa wax kale aan wadaagna ma lahan soo waxa garta ma inay waanada iga qaadatana way lahayd inay igu diidana way lahayd laakiin inay aflagaadaysa ma lahayn ani wicilna ma dhalin ilaahay baana magan oga ah kelmadaha ay sheegtay iida iyo qiyaamadeeda maalinta yoomal qiyaama ani iida ku xisaabtamaynaa waa haday qiyaamo taqaano waay teeda kale ani ma ayna nimana ku fuulay waxaas ma dhihin afkaygana ma soo qaban waxaasna sida loogu hadlo ilaahay bay ma barin soo waxa gartay ma haday iida caadi u tahay waxaas oo iida ay taqaan ayada gaar u tahay laakiin ani waxaas afkayga ma soo qaban midna marna ma oran gabadhaas hadal ceebna kama sheegin waanaan wate oo ilaahay uu ogyahay rasuulkiisa uu ogyahay haday iga qaadato qeyr haday iga qaadanana qeyr laakiin ani wax xumaan ma dhihin nimana ku fuulo inta meel soo fadhiistana ma dhihin inaan waaniyo oo walaashay iga qaadato gabadhayda iga qaadato haday iga qaadan weysana inay macnaha ay caysa ma lahayn caydaasna waxa maanta maalna ahayn
aan ku xisaabtamayna ani iida waxaan filayaa inaad muuqaalka kalena ila daawatay aadna aragtay yacni maamada jawaabteedii kaleeto iyo waxa ay maaragtay eegada ay ka aaminsan tahay kuwiin qaawan run ahaantii maamadu hadda way xaqiiqsatay waxay tahay kuwiin qaawan marka waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay qof walba oo Soomaali ah oo dambi ku jira ama khalad ku jira in uu ilaahay maaragtay soo hanuuniyo tubta toosan ee xaq ah inuu tuso ayaan rajaynaynaa kulli culimadu in badan way ka hadleen arrimahan oo kaleeto marka hanuunka ilaahay baa haysta marka ilaahay ha soo hanuuniyo yaan leenahay waxba yaan muuqaalka idinku sii dheeraynin haddii aad nala sii joogtay waad mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahayna waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe-ka noo saarto like share comment intaasoo dhanna waa dhiirigelintaanada wabilaahi tawfiiq